بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم إلهي ما هذا اسكله اولا meeshan waxaan sugu nimid galabta inaan ku wareejino deeq ay noo soo dhiibeen dhalinyaro walaalaheena oo reer baxda ah oo jooga magaalada Nairobi caasimadda Kenya deeqdaas ayaan ku wareejin doonaa qayb kamid ah galabta meesha waxaan ugu talagalay inaan biyo ku shubno hadii Ilaahay qadaro biyaha cadadkooda anaga idin soo sheegi doon dib ka soo sheegi doonaa laakiin hadda biyihii lowrkii ugu horeeyay ayaan meeshan ku wareejin doonaa waxaan ku wareejin doonaa walaalkay Sheekh Cabdullaahi Lugay Nuure iyo adeer Faafaale oo deegaanka balbaliso biyahan ugu talagalnay lowrka biyaha barkada Cabdullaahi Lugay lagu shubo deegaanka shawan oday baa meesha ka taagan kaamirada kolba ku arki doontaan Faafaalaha kamida waxa kamida Cabdullaahi Lugay oo biyaha lagu wareejinayo waxa kamida Axmed Macalin Xuseen waxa kamida Maxamed Guutaale waxa kamida nin kale oo dhalinyaro ah kolba kaamirada ku arki doontaan shantaas nin ayaan ku wareejin doonaa ayaguna si cadaalad ah u qaybsan doonaa hadii Ilaahay qadaro waa leerku ugu horeeyay oo loo magacaabay beesha balbaliso 116 fuusto ayay qaadaa waa booyada meesha gadaasheeda ah taagan mataan diirinin leeyahay ayaa iskale hadii Ilaahay qadaro kuwa kale sidoo kale aan ku sharaxi doonaa marka biyihii waa la wareegeen inay la wareegeen kolba kaamirada ku arki doontaan ayaga caday doon haddana waxaan ku wareejinayaa warka Sheekh Cabdullaahi Lugay Nuure insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim Allahumma salli ala Muhammad ilaahu mahad iskale waa la wareegnay biyahaas uu sheegay ninkaasi ay noo soo direen walaalaheen dhalinyaro ah oo joogta magaalada Kenya meel kamida waxa weeye marka 116 fuusto gooyad qaadaan la wareegnay annagoo reer balbaliso بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم waxaan u mahad celinaynaa rag dhalinyarada ah oo biyaha soo gudbiyay waxaan ahay xubin ka tirsan guriga gurmad insha Allah waa biyihii abu amarteen dadka in la gaarsiiyo lacagta u soo dhiibteen wala martaan in biyo loogu gado biyihii qayb kamid ah soo qaadnay maanta waxaan keenay meel la yiraahdo Budjeerin hadda waxaan taaganahay baraag kamid ah baraagii Budjeerin marka ugu masuulsanaay deegaanka ayaa nala jooga oo ninkii baraagta iska lahaa kamid yahay marka insha Allah ragaas aan ku wareejinay biyahaas naloo keenay oo rag gidiga noo keenay marka jaaridii aan soo diray oo Budjeerin jooga baraag anaga tayaha lagu soo maxaa jimcaale la yiraa waana noo keeneen waana ka qaabilnay wixii soo keenay oo soo marka hore soo dhiibana faataxadana waa umarna waan u duceynay ayaga kan wax soo qorsheeyna sidoo kale ugu duceynay haddeerna waa u dhibaatoona hadda Ilaahay soo soo gaarin haddana waa nala siiyay xoolahaas waa nala ku wareeji waxaan raacinayaa magacayga Salaad Xuseen Xayo weeye anoo kamida beesha Budjeerin odayaasheeda waxaana lagu wareejiyay 110 fuusto booyad qaada oo biya nalana yiri dhalinyarada Nairobi soo dhiibtay oo soo martay guddiga abaaraha baxdo intaas waa weysiis waxaan ku daraynaa wax yar oo cabasho ah meeshan low iyo labo markaa waa beel badan oo degaan ah barkadaaley ah dad 100 gaaraya ay qoys ayaa degan waxay leeyihiin ardo waxay leeyihiin duqow waxay leeyihiin agoon waa dad badan hadda ka horna wax wareegta ah oo sarfayna ma imaan iyadoo loo soo baynayo guriyo muuqda oo dhisman inaysan lahayn waxaanu taaganahay meeshan hadda booyintan rumayna ku wareejino biyihii ay noo wakiisheen dhalinyarada reer Nairobi inaan u dhaanino walaalahooda dhibaataysan ee deegaamada bacda hoostaga ah waxaan rabnaa hadda inaan ku wareejino booyad biyaha oo 105 fuusto qaad ah waxaan rabnaa inaan ku wareejino beesha reer Caloolgeel oo uu ka joogo macallin maaragtay Cabdi Maxamed Jimcaale iyo asxaab kale oo fara badan waxaan leenahay booyadaas biyaha la wareega walaalihiina deegaankaas ku sugan uga cadaalad sameeya si wanaagsan ugu qaybiya intaas baan kula dardaarmaynaa wana mahadsantii walaal bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin biyahaas nala guddoonsiiyey waa qabanay waana qaadaynaa insha Allah tacaala dadkana waxaan doonaynaa haddii Ilaahay raadi ka noqdo inaan u qaybino oo maaragtay si wanaagsan loogu cadaalad sameeyo waana ninka guddoonay
وأنا مهل علينا أنت كنتي أنت وضع مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو أضياش على الجيل وحن بيدان بيها وأنا قبلني dadka masaakiinta iyo dadka lagu talagalana saacad daalada ayaan ugu qaybinaynaa insha Allah kariim ilaahay weynaana ma darqayr qaba anaga siiyo samad halkan waxaan rabnaa inaan ku wareejino lacagtii ay noo soo dhiibeen dhalinyarada reer Kenya ay noo soo dhiibeen anagoo ah guddiga degmada Baxdo ka howlgala waxaan rabnaa inaan ku wareejino halkan lowr biyo ah uusto taariikhda 116 uusto oo biyo ah inaan ku wareejino dadka caracadka deegaankaas la yiraahdo dadka degan oo wakiil uu ka yahay nabadoon daar xasan yare insha Allah taala waxaan leenahay biyahaasi cadaalad ah dadka deegaanka degan ugu qaybiya dadka walaalahooda soo dhiibana way mahadsan yihiin aad iyo aad ugu hambalyeynayaan bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad iskale bacdi waxaan u mahad celinaynaa dhalinyarada reer Kenya oo gurmadka ka aad iyo aad uga qayb qaadatay wadanka abaaruhu ka jiraan walaalaheen guddiga ay noogu soo dhiibeen biyaha way noo keeneen annaguna waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii dadka meesha jooga inaan si fiican oo sharaf leh aan ugu qaybino u kala gaarsiino intii ay kala gaaraan waxaan ballan qaadnay inaan wixii mutaysto oo nagu yimaado inaan shida ka imaanin boqolkiiba boqol waad mahadsantihiin biyahaasna waa la wareegnay guddiga abaaraha waa kala wareegnay waana qabannay waxaana weeye muslimiinka dhibaatoon wixii aan la gaari karana waa gaarsiinayn horta ilaahay baa mahad iskale dadka muslimiinta oo biyaha soo dhiibay waan u mahad celinaynaa ilaahayna khayr ka badan ha ugu bedelo guddiga walaalaha oo nala kugu dhiibana waa nagu wareejiyeen innaguna waxaan rabnaa dadkii loogu talagalay si wanaagsan inaan u gaarsiino abaarta iyo dhibaatadana ilaahay naga saaro halkan waxaan ku wareejinaynaa lowr biyo ah oo ka mid ah biyihii aanu maalmahan dhaandhaaninaynay aan u qaybinayna dadka deegaamada Baxdo hoos yimaada oo ay noo dhiibeen walaalaha reer Kenya wiilasheena ay noo dhiibeen waxaanu lowrkan biyaha ku wareejinaynaa beesha reer daadhi oo ay nagala joogaan 3 nin maxamed xaashi xuubey iyo ay nagala joogaan macallin Cabdi Dhamays iyo ay nagala joogaan ku wareejinaynaa iyo Shinuur Warsamakaahiye arrintaas waxa weeye waxaan leenahay biyahaas la idin dhiibay walaalayaal dadkaas si cadaalad ah ugu qaybiya oran siiya waxa loo soo dhiibay waa in dadkaas maanta maaragtay dhibaatada ay haystaan abaaro ay haystaan ay ku dhunyadaan afcab ay ka helaan waxaan leenahay marka si xasilooni ku jirto harrayn ay ku jirto kaliitay iyo kala taba loo kala saarayo dadkaas biyaha in loo kala gaarsiiyo insha Allah taala waa mahadsantii bismillaahir rahmaanir rahiim waa ku mahadsantihiin waana idinkaga amaan mahad celinaynaa dambigiina Allah dhaafo annaguna waa gudoonay si sharaf leh kugu soo wareejiyay annaguna waa gudoonay waana bixinaynaa waxaan rabnaa waana idinka codsanaynaa in naxariista dadka lagu fiiriyo oo aan la halmaamin oo la ogaado oo sida hadda suxul saarteen weligiin baa suxul saartaan ilaahay abtina ha asturo kuwa maqaan lagu gaaro Allah ka dhigo dadkana abaarta Allah ka qaado awal ba ay ma jiro isma arki jirin abaarta isu keentay daadina waa ku wareejinaa si sharaf leh waa loo qaybinaya wa calaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh awalan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh halkan waxaanu ku wareejinaynaa biyihii aan maalmahan wadnay hawshooda ee ay noo dhiibeen lacagtii yareed noo dhiibeen wiilasha reer Kenya u soo dhiibeen degmada Baxdo iyo nawaaxigeeda waxaan rabnaa inaan halkan ku wareejino lowr biyo inaan ku wareejino beesha kala dus oo ay nagala joogaan Cabdi Cumar Shire iyo Master Ruur Cali Xalane iyo ninka la yiraahdo Cali Cabdi nagala joogaan waxaan u leenahay biyahaas walaalayaal dad walaalihiin oo la mid ah ayaa soo dhiibtay dadka walaalihiin oo loogu talagalay maaragtay sida loogu talagalo u siiya kala gaarsiiya si wanaagsan oo maaragtay naxariis ugu jirto oo midka liita lagu hareeminayo ku siiya waa mahadsantihiin waa siinaynaa daal ilaahay idmo biyaha dadka waa siinaynaa dadka sadaqaystay siday u soo bixiyeen u bixinaynaa dadka masaakiinta oo sii liitana waa ugu roraanaynaa
kuwa kaleetana wixii ilaahay u calfaan ka siinaynaa si daacadana waa ugu qaybinaynaa haddii ilaahay idmo sidaasaan ku dhammaynayna haddii ilaahay qadaro waxbaan u badan maayo biyaha haddii meesha ay tagaan ilaahay nabadgeeyo sida dadkaas meesha joogo macnaha ugu dadaal badan ayaa loo siinaya haddii ilaahay aqbalo insha allah awalan allah subxaana watacaala ayaa mahad iskale halkan waxaanu ku wareejinaynaa biyihii dhallinyarada reer Kenya ay noo wakiisheen inaan ka dhaanino meeshan degmada Baxdo annagoo ah guddiga gurmad ee ka howlgala degmada Baxdo halkan waxaan ku wareejinaynaa lawr biyo ah oon ugu talagalnay inaan siino beesha reer Meegaagduub oo aan ku wareejinayno sheekh ninka la yiraahdo sheekh Nuur Maxamed Khayre oo loo yaqaan sheekh Nuur Malaas iyo ninka la yiraahdo Cabdullaahi Diiriye Xubey iyo akhyaar kale oo la socotaan inaan ku wareejino lawrkaas biyaha waxaanu leenahay lawrka biyaha oo ku wareejinay waxa loogu talagalay dadka dhibanayaasha oo aad u liito oo biyaha dhaansan karin ama tabarta yar marka waxaan leenahay biyaha dadka si cadaalad ku jirto ugu qaybiya oo hareesha dadka liita waa mahadsantii biyaha waa guddoona biyaha waxaan u qaybaynaa dadka muslimka oo masaakiinta haddii ilaahay qadaro waa mahadsan yihiin dhallinyarada gurmadkaas u soo baxday iyo kuwa deeqda soo dhiibayba 90% ilaahay mahad ha gaarsiiyo waxaanu jecelnaa annaguna haddii ilaahay idma biyahaas waa kala wareegnay inaan siino dadka tabaalaysan oo danyarta ah haddii ilaahay qadaro kuna wareejinno una qoontayno sidaas baanu annaguna uga qabannay ugana aqbalnay wabilaahi tawfiiq halkan waxaan ku wareejinaynaa lawr biyo ah biyihii aan dhaaminin bariyahan lawr biyo ka mid ah beesha reer Afwaax oo nagala joogaan labada nin ay nagala joogaan Khalif Ciise Dhoore iyo Warjaan Faradheere ina Faradheere kuushinina marka raggaas aan lawrka biyaha ku wareejino waxaan kula dardaarmaynaa lawrkaas biyaha dadka masaakiinta oo dhibanayaasha ah oo aad u liita ku dhaqaaleeyo u hareesha sidaas baa loogu talagalay afcad laga wada dhigto waa mahadsantihiin waana inaad fulisaan warajeynayna insha Allah alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa uu lawr biyaa oo nalku wareejiyay annagoo beesha Afwaaxa oo magacayga leeyahay Khalif Ciise Dhoore lawrkaas biyaha waa la wareegnay dadka masaakiinta oo daruufaysan oo u qaybinaynaa waxaan u mahad celinaynaa biyahaas ummadii noo soo dirtay oo sadaqaysatay waxaan markaa mar labaad leenahay aad iyo aad ku dadaalo xaaladu waa adag tahay naf iyo maalin joogta dadkaas waa mahad celinaynaa qayr badan Allah siiyo jir xasanaadna Allah ka siiyo annaguna waa kala wareegnay ciyaarta noo keentay haddana waxaan u baahannahay in naloo sii laban laabo dadaalkaas dadka liita iyo wixii u baahan oo danyarta ayaan doonaynaa inaan siino waana siinaynaa waa waafajinaynaa qayr badan Allah siiyo ku soo dhiibay hadda ka bacdina waa ka rabnaa billahi tawfiiq alxamdulillaah rabbil caalamiin allahumma salli ala sayyidina alxamdulillaah ma taskale meeshaan waxaan ku wareejinaynaa biyo ah oo birihan aan dhaandhaaninaynay oo naga soo gaaray dhalinyaro joogta Nairobi lacag inoo soo direen oo aan ku dhaandhaaninaynay baan wareejinaynaa waxaan ku wareejinaynaa beesha Balcaano oo nabadoonka Axmed Cabdi Axmed Ciid ugu horeeyo tagaan ku wareejinaynaa insha Allah hadii ilaahay idmo bismillaahir rahmaanir rahiim nimanka dhalinyarada oo biyaha loo soo dhiibay oo soo dhiibtay waa ku wareejiyeen anigoo ah Cabdi Axmed Ciid biyahaasna waa nagu yaryihiin waxaan codsanaynaa in loo soo bariyo laba deeqan laakiin waa geynayaa waana ka mahad celinay khayr badan Allah ina siiyo noona soo badiya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan wareejinaynaa insha Allah biyo raamis aan bariyahan wadnay dhalinyaro reer Nairobi ah magaro naga soo gaarteen biyo ku dhaadinaynay karanta waxaan ku wareejinaynaa beesha Balxabaal oo ay ka mid yihiin Cawil iyo ninka la yiraahdo maaragtay Cali Shireed إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لنا نفكر هذا اللي كنا هاي ممكن هذا الناس وأنا لو رجلي وبدوني خير بدن في هذا اللي كنا هاي الدنيا آخرة الله كسيه أنا معي ليش تكن بالحبال. وبدوني بيهاس أنا بوريجي ورب الحبال بوريجي أنا بوريجي ياشي ليش أنا وآه ما علينا ضدكي نسودي بالدرس إلى معضلة أكيد ما تسين الدرس نسودي halkan waxaan rabnaa inaan ku wareejino lawr biyo ah oo ka mid ah biyihii maalmahan aan dhaandhaanimeynay carradaan ka wadnay deegaamada Baxdo hoostaga waxaanu ku wareejinaynaa lawrkaas biyaha ah deegaanka reer Galqurun oo nagala joogaan Nuur Xasan Yare iyo Cusmaan Cilmi iyo Niglashi Maxamed Axmed Faarax Shiilay loo yaqaano saddexdaas nin baan ku wareejinaynaa iyagoo saddex mas'uul ah waxaanu leenahay biyahaas lawrka waxa lagu talagalay dadka masaakiinta oo liita inaad maaragtay ku dhaqaaleysaan
u hareebisaan waxaan leenahay mas-uuliyaddaas haddii ilahay idin laydin saaray ka soo dhalaalo ka soo baxa dadkii keenana waxaanu leenahay jazaakumullahu khayran axsanu jazaa wax wanaagsan ilahay idinku abaalmariyo waa mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد رجاس محا عبد الله ونقول ريتين بويداس أنا وحن سكودينا إن ضد كاسي وناسنا وقايبنا وانكبدون لي ضد كي كان سلمان الكاسنا خير بدن الله سيو وحن لنا أنفع وين أي نتريسا لكن باهدا أنت أسكبدن ضد كهذه أدو ترب بدن هاي وستقوم وهليو biyaha waa ugu daran yihiin wax kalena way u baahan yihiin marka waxaan leenahay si wanaagsan ugu gurbada walaalaheen soo dhiibtay jazaakallahu khayran hadii la kuurana biyaha noo soo dhiibay mase weelasheen mahadaan u celinaynaa ilaahay khayr badan ha siiyo dooyad biyaa waana lagu wareejiyo oo boqol qaada dadkaas kala qurun joogana haddii ilaahay idmo waa u qaybinaynaa waa u dadaalaynaa baahidoona aad iyo aad ay u badan tahay wax yar oo xaqiira oo hadee la kuurnayaa ay u noqon kartaa dadkaas laakiin wanaag badan Allah ida siiyo ajir iyo xasanaad Allah ida siiyo wixiina Allah barakeeyo waxaan rabnaa inaan ku wareejino loo biyaa oo ka mid ah maalmahan aan wajahadooda waxaan rabnaa kale loo biyaa oo qaadeen ku wareejino deegaanka oo nagala joogaan laba nin nagala joogaan hadda waxaan u leenahay biyahaas ugu tala galay oo dadka reer Gubaabeed loogu tala galay waxa loogu talagalay dadka masaakiinta oo dhinayaasha ah in lagu hareersho oo loo dhaqaaleeyo dadkaas oo tartiibsho loogu talagalay ka soo baxa mas'uuliyadaas oo dadkaas ugu dhaqaaleeyo sidii lagu talagalay u qaybiya waa mahadsantihiin markaas yaa qoontiinay waxay ku wareejiyeen hooyad boqolqaad ah oo Gubaabeed ay yiraahdeen u qaybsha sidii ay noogu wareejiyeen dadka masaakiinta iyo dadka liita inaan u qaybino aan loo xilsaaray halkaasna inaan gudubno aan rabnaa haddii ilaahay u qulaado oo ilaahay raalli ka noqdo dadkii soo dhiibay waxaasna aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay khayr badan ha siiyo ilaahay jiso iyo haddii aan laguda dembi dhaaf ha siiyo baahida dadka dalka taalaana intaas waa ka badan tahay dadku wax walba u baahan yahay waxaan leenahay oon ka codsanaynaa si il wanaagsan siday noogu وبعد waxaan rabnaa halkan inaan ku wareejino lowr biyo ah oo kamid ah biyihii maalmahan aan wadnay ee ay noo wakiisheen ragga dhalinyarada ah ee reer Nairobi Kenya jooga ay noo wakiisheen annaga guddiga gurmad degmada Baxdo ka howlgala lowrkaas biyaha waxaan ku wareejinaynaa deegaanka Liira reer Langabaabo oo ay nagala joogaan hadda Maxamuud Muuse iyo Xasan Berxood ay nagala joogaan waxaan leenahay lowrkaas biyaha u gudoomo deegaankaas dadka masaakiinta oo loogu tala galay oo meesha deganna ku siiya sidii loogu tala galay ku bixiya waa mahadsantihiin gooyadaas biyaha oo ku wareejiyay waxaan yeelaynaa dadka la kugu dhiibay waa u qoonteeynaa waa u qaybinaynaa sidii loogu tala galay aan u kala gaarsiiyeynaa sidii u kala liitaan u siihaynaa wixii soo dhiibana waxaan leenahay dabigeena Allah dhaafo walaala jira haddii la ku dad jira adduunyo aakhiro liibaana risquna haddii la ku Allah risqeena fisqo intaas baahidu waa ka badan tahay waa dad abaari xaaqday maalkii waa ka xaaqday dadkii waa ka xaaqday waxaan leenahay hana loo soo celsho waxaan leenahay hana loo roonaado ilaahay ha idin roonaado risqeena Allah barakeeyo dib dhaaf Allah idin siiyo intaasaan ku gooy halkan waxaan rabnaa inaan ku wareejino lowr biyo ah oo loogu tala galay meesha Reerdhagluul oo ka mid ah biyaha maalmahan aan wadnay hawshooda meeshaan ka dhaadhaaminaynay anoo ka mid ah guddiga gurmad waxaan lowrka biyaha ku wareejinaynaa oo boqol qaada meesha la yiraahdo Reerdhagluul oo ay nagala joogaan Cabdi Khaliil Barre iyo Cabdi ninka la yiraahdo macallinkii Nuur Cabdullaahi Maxamed raggaas nagala joogaan baan rabnaa inaan ku wareejino waxaan leenahay biyahaas waxaa loogu tala galay dadka masaakiinta ah inaad maaragtay si farsamaysan oo tartiiba aad ugu qaybisaan waan rajaynayaa inaan insha Allah aqbali doontaan codsiga dadka soo dhiibana waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo waana mahadsantihiin waan helnay ilaahay yacmaalaha ka siiyo walaalaa noo gurmatay ilaahay ajri xasanaha ka siiyo waanan qaynaa waana cabi doonaa waana u qaybinaynaa masaakiinta xoolahooda daaciyeen magacayga macallin Cabdi Tahliil Barre anigu ah oo beesha quraanka u dhigi jiro macallinkoodii ahaa oo 40 ka qoysoo dhaxaysay macallinkii quraan ah macallin quraan ah wabillahi tawfiiq biyahaas waa helnay waana si fiican waa loo cabaa waana u qaybaynaa hadii la yiraahdo
nuur cabdullaahi maxamed iyo oo ka tirsan beesha reer eglul biyahaas waan helnay insha allahu bilkariim dadka masaakiinta iyo xoolaha si aad iyo aad u wanaagsan loogu qaybin doono haddii alla bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa mataan diiriye cabdoo jooga degmada baxdo ka mida guddiga gurmad guddigan horta dhowr sano waa shaqaynayay wuxuu ka shaqo bilaabay dadka liiliito magaalada liiliito wax arurintiis dabadeedna waxaan 6 bilood ka hor qiyaasta lagu soo biiray dadkii kasoo barakacay bacda iyo xardheere dabadeedna abaartii yaa maaragtay aada u kacday hadda barnaamijkan galabta wuxuu ku saabsan yahay lacag yar oo ay kasoo dhiibeen bulsho reer baxda ama soomaali oo dhama nairobi oo sidana laku yiri nin la yiraahdo tahliil maxamed ciise warsame cirsi iyo nin la yiraahdo yoonis cabdirays cabdullaahi warsame ay soo dhiibeen dad ay maaragtay soo dhiibeen lacagtaas waa qabanay waxaan ka bixinay 1900 oo fuusoo biyaa oo weliba gaadiidka aan shidaal ku shubin camal ka dhignay biyahaas waxaa la siiyey wixii baxda u dhawaa oo dalka waa taqaaniin yoonis iyo italiilo waxaa ugu fog dhulka hadda biyaha la geeyey balle xabaar oo kale ugu fog inta kale dhulka waa taqaaniin waa xanan waa meesha la yiraahdo meeyagduub waa afwaax waa daarkii warsame cabdi xuduudahaas dhow weeye dadkii sii dhibaataysnaa sida haddaan idiin soo qabto samakaab qaayib baaladheer meegagudle dhirindhir huldoo yaalay biyaha waxaa baabuurta ku geydaa $3 $4 ayada dhan lacagtaa dhalood keenteen $5 ma goydo saas awgeed waxaan isniri beer qoyen waa beer qoyey hal qoye beerarka dhadhow dadkaas oona u afreebteen mana qadineen wala qayb lahayn lacagta ayaan ayaga dhowr roor u goy karin sidoo kale dadka magaalada ku soo aruuray oo ama colaada bari ka soo barakacay ama abaartu keentay waa xaaladoodu niil waa fool ummaddu soo socota inagu dhaqaalada ku ogin waxaad wax ka soo qaadeen khayr Allah siiyo adinkan ajar Allah ka siiyo iska qayla dhaasha ilaahay baan idin soo baryeynaa adinku ilaahay noo soo baryo ilaahay abaarta naga baxsho waxaan rabnaa arrintaas saas u fushay waana sii wadaynaa wixii karaanka iyo deegaanka ah idinkana waxaa la rabaa iyo wixii kaloo muslimaan ah oo ama deegaanka u dhashay ama Soomaali weyn dadkaas inay waxay u soo tari karaan ilaahay baan rajo ka qabnaa waqti rooban ugu dhow waxaan isleenahay laba toddobaad ama isleenahay roob labadaas toddobaad wixii la caymi karo in la caynsho iyo wixii dadaalkiina والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقعي حسين شيخ آدم وكمل جدجان قرمد وماشي إنكو تعرفي محمد عبد الله وحيابها أقوبضا وهذا دجامد أقوبضا وبيها اللي ورالك متان وشاقي وقولي سجال قبقلة أنت أقوبضني ومهم كاهي وأنت هذا وشاقي sida galqurun balguuleed galdidible laama weyne balle xabaal kaxandho balle caano meesha la yiraahdo afwaax dhaglun godjeerin meegagduub biyadays xanan kuxiji laangabaabo caloolgeel iyo in kaloo badanoo hadda aan na sheegin inta uu sheegay walaalkay marka maxamed oo meelaha fogfoga waa meelaha oonka saa'idka ah oo ku jiro hadda sida gudjeerin oo kale maalintii dhawada biyaha aan ku shubaynay sida kaamirada aad ka arkaysiin oonka ka jiray dadkii aan biyaha u geynay waxaa ka mid a dad tubooyinkii iyadoo baraagtii biyihii lagu furay laga fuji waayey
maxaba ay u qabaan biyahaas loo shubayo waxaan ka codsanaynaa marka intii hadeertaan kullay soo aruurisay ama lacagta wax ku lahayd khayr badan iyo ajar badan oo aan la koobi karin Allah ka siiyo inay raggii sida yiriisoo kale ama tahliil ay dadaalkoodii lama laabaan oo dadka loo soo dadaalo wax yar baaba haray alla xaqiisa waxaan ka baryaynaa madar khayr qaba ilaahi ummadiisa inuu u keeno wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh